Al-Shabaab ayaa codsaday in loo furo erdo ay gobolada dhexe kaga baxaan Puntland ay u tallaabayaan sida xogo kala duwan ay muujinayaan iyaga oo buuraleyda gobolka bari ka dhiga raba aag ay ku dhoomaaleystaan. Sidoo kale xogo muhiim ah oo soo baxaya tilmaamaya in kooxdu ay aadi rabto deegaanada Somaliland ay maamusho. warbixin la yaab leh kala wadaagi doono farnay Al-Shabaab soo direen iyo dowladda Soomaaliya oo ku gacan sayrtay maxay tahay farrintaasi Al-Shabaab xilligan xaaladoodu wacsiday. marka hore sheegay warbixintan idinka oo meel walba ku tooriyo muuqaalkan sidoo kale qaybta afaalada nagula wadaagay aragtidiina waa hagaaga aan ku bilaabo. sida ay muujinayaan xoog kala duwan oo soo baxay ururka Al-Shabaab ayaa farriin u soo diray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ka dalbadeen inay u baahan yihiin in loo furo irdaha si ay markaasi ugu tallaabaan deegaanada gobolada ay maamusho Puntland halkaasi oo ay doonayso kooxda Al-Shabaab in markaas ay ka dhigasto farriimo ay ku dhoomaalisay kooxda uga dhoomaaleystay ciidanka dowladda Soomaaliya dagaalka adag ay hadda kula jiraan oo maraya aaga heer gabagaba iyadoo deegaano badan laga xoriyay ururka Al-Shabaab. cadaymo iyo markaasi qoraallo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ay u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dalbanayso in arrintan loo fududeeyo isla markaana ay joojinayso dagaalka muddo inta ay ka baxayda deegaanadana ay u baahan tahay in si toos ah loogu ogolaado in ururka Al-Shabaab la siiyo aagag ay kaga baxaan gobolada kala duwan ee dalka. arrintan waxaa ku gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage isagoo amray in Al-Shabaab aysan heli doonin fursad ay kaga baxaan meesha hadda ay ku jida xiran yihiin. maadaama xaaladdu dadagtana ciidanka dowladda Soomaaliya ay tahay inay hadda gabi ahaanba soo gabagabeeyaan kooxdan oo albaabada loo soo laabo. arrintaas oo ka dhignaan doonto in kooxdu aysan markaasi awood u heli doonin inay dagaalka sii wadaan haddii loo ogolaado inay ka baxaan markaasi gobolada dhexe oo aadaan Puntland laftirkeedu dagaalka ay ka wadi doontaa. sidoo kalena dad Soomaaliyeed ayaa laftirkooda halkaasi degan ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Abshir Macalin Diris oo ka mid ahaa hoggaanka ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda ayaa ka warbixiyay xaaladda ururka ay wajahayaan. taliska qaybta lixdan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay markaasi soo bandhigeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Dinsoor. Abshir Macalin Diris oo magaciisa afgarashada uu yahay Sahal ayaa isku soo dhiibay ururka 104 ee taliska guutada 8 ee qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka ee fadhigoodu yahay degmada Dinsoor. Abshir ayaa markii uu soo dhiibay watay qor nooca AK47 ah iyo booshkiisa wuxuuna kooxda Al-Shabaab u qaabilsan dhinaca jabhada ama kuwa weerarada geysta. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay Abshir inuu ka soo qayb galay weeraro badan oo kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Galgaduud, Mudug iyo degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ninkan oo markaasi saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa muddo 5 sano ah wuxuuna sheegay in markii uu kooxda uu ku biiray markaasi uu ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Gurbaan ee gobolka Abay ee ka tirsan taasoo u fududeysay inuu kooxdan hoggaan sare ka noqdo bilihii la soo dhaafay. ayaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad waxay sheegeen inay kordheen xubnaha tirada Al-Shabaab oo isu soo dhiibay iyadoo ay socdaan howlgallo ka dhan ururka Al-Shabaab oo looga sifeynayo gobolada Bakool iyo Bay, iyadoo arrintan ay noqon doonto mid ururka Al-Shabaab markaasi ku kalifi doonta inay gabi ahaanba ka tanaasulaan inay sii wadaan howlgallada. shaqariyo xogaan qaybta falan guriga wadaaga aragtidiina tan iyo go'aan si dambana nabadgelyo.